filimku wuxuu ku bilaabanayaa jilaaga filimka oo lagu magacaabo Meg oo macsalaameynaya saaxiibadiis Jenny isagoo raba inuu u aado howlgal muhiim ah waqooyi Afrika 3 bilood kadib Meg iyo saaxiibkiis Tommy waxay joogaan saxaraha waqooyi Afrika iyagoo indhayndeynaya targetkoodii ugu dambeyn waxay arkayaan laba koox oo ka kala imaanaya laba jiho oo iska soo horjeeda kooxna waa ay lugeynaysaa kooxna waxay saaran tahay gaadiidka dagaalka kooxuhu waxay ku kulmayaan bartamaha saxaraha waxayna madaxda Meg ku cadaadinayaan inuu toogto isagoo kala hadlaya qadka mobilka si kastaba ha ahaatee isagu ma kala cadda midka loo baahan yahay in la toogto oo tani waxay u muuqataa inay tahay qoys aroos intaa kadib Meg wuxuu tuhmayaa inuu yahay targetku aabaha arooska Meg wuxuu u sheegayaa madaxdiisa xaaladdu siday tahay isla markiiba si degdeg ah waxay ku amreen inuu dilo balse Meg wuxuu ka diiday inuu si khaldan u dilo qof rayid ah oo isagu ma hubo inuu ninkan yahay bartilmaameedka wuxuuna u sheegayaa inuu si lama filaan ah ku waayay bartilmaameedkii intaa kadib Meg iyo saaxiibkii Tommy waxaa si fudud ku arkaya qayb ka mid ah dalmeydii ku hubaysnayd hubka waxayna ku furayaan rasaas aan kala joogsi lahayn Meg isagoo adeegsanaya khibradiisa dagaal wuxuu halkaasi ku dirayaa ilaa dhowr nin ka hor intaanu cararin halka ilaaladu ay isku dayayaan inay madaxdooda badbaadiyaan qaarkood waxay bilaabeen inay Meg iyo Tommy soo dabagalaan hadda labadoodu ma haystaan doorasho aanan ahayn inay buurta ka boodaan oo ay ku gabadaan buurta hoosteeda intaa kadib Tommy wuxuu wacayaa saraakiisha madaxda si uu u weydiiso samata bixin balse GPS-kiisa ayaa jabay oo ma shaqeynayo waxa ayna garan laayihiin meesha saxda ah ee haatan ay ku sugan yihiin isaga iyo saaxiibkiis Meg cadowgu waa uu soo dhawaanayaa sidaa darteed Meg ayaa tooganaya buur kale si ay u aadaan jiha khaldan waxaana si lama filaan ah u tegaya cadowgoodii maadaama ay arkeen duufaano ciid ah oo aad u waaweyn kuwaasoo dhankooda u soo socda Meg iyo saaxiibkiis Tommy waxay isku dayayaan inay duufaanta ka gudbaan oo wejiga ayay daboolanayaan Tommy ayaanan joojinayn wicitaanka madaxdooda inkastoo markaan loo sheegay inay tagaan tuulo u jirta 5 saacadood markaas ayay awoodaan madaxdu inay si fudud ku soo qaadaan Meg iyo Tommy ugu dambeyn waxay maareeyeen inay duufaanta ka gudbaan iyagoo ku soconaya kuleelka aadka u daran ee saxaraha Tommy ayaa aad ula sheekaysanaya saaxiibkii isagoo ka sheekeynaya xaaskiisa iyo wiilkiisa weyn laakiin Meg in badan ma hadlayo oo wuxuu ka fikirayaa sidii ay uga bixi lahaayeen saxarahan Tommy ayaa markaan weydiiyey sababta uu Meg u guursan lahayd Jenny Meg ayaa ku jawaabay haa waan rabaa inaan guursado laakiin arrimuhu way adag yihiin saacado kadib waxay raadiyaha ka maqlayaan in kooxdii soo qaadi lahayd ee la kulantay dhibaato sidaa darteed loo baahan yahay inay si degdeg ah ku imaadaan tuulada raadiyaha ay wataan in badan ma shaqayn doono maadaama uusan haysan signal in yar oo ay soconayeen Meg iyo Tommy waxay mar kale la kulmeen duufaano waa ayna istaageen hadda waxay si dirqiya ku arkayaan nin iyo ilmo yar kuwaasoo dhex maraya duufaanta ciidda ah waxay isku dayayaan inay toogtaan laakiin ma suurtageli karto maadaama ay si teelteel ah u arkayaan Meg iyo Tommy waxay sii wadanayaan socodkoodii safar iyagoo dhex maraya saxaraha aadka u kulul iyagoo wata socodkoodii ayaa calaamad digniin u muuqata ku soo dhacaysa cagahooda hoostooda Meg ma akhrin karo qoraalka meesha ku qoran laakiin wuxuu fahmi karayaa calaamada guduudan ee tusinaysa inay khatari meesha ka jirto wuxuuna xasuusanayaa in Mareykanku halkani ku aasay miinooyin badan si kastaba ha ahaatee Tommy ayaa wuxuu u haystaa inay arrintani tahay dhayal waxa uuna dhahayaa xaaladani waxay u muuqataa in dadka deegaanku ay doonayaan inay ku cabsigeliyaan cadowgooda Tommy ayaa sidoo kale u sheegaya inay hadday dib u noqdaan ay u dhiman doonaan oon iyo gaajo sidaa darteed wuxuu sii wataa socodkiisii isagoo kalsooni ku qaba in calaamadu ay muujinayso inay magaaladu soo dhawaatay saacado badan oo ay soconayeen Meg ayaa istaagaya weliba isagoo malaynaya inuu miino ku istaagay laakiin wuxuu garwaaqsanayaa inay waxaan yihiin askari yar oo ay carruurtu ku ciyaaraan waa uuna ka helayaa isagoo hore u soo qaadanaya waxa uuna saaxiibkii la wadaagayaa xoogaa ka mid ah biyihiisa Tommy ayaa bilaabaya inuu gadgadaal u socdo isagoo ku jeejeesaya Meg inuu weli ka fikirayo miinooyinkii si lama filaan ah waxaa la maqlayaa dhawaaq muujinaya sida miinooyinka oo kale Megna wuxuu isku dayayaa inuu saaxiibkii aga digo inay arrintani ahayn dhayal laakiin waa maray goor tahay Tommy ayaa qaaday tilaabadiisii ugu dambeysay waxaana ku qarxaya miinadii Meg ayaa isku dayayaa inuu saaxiibkii hore ugu dhaqaaqo si uu u caawiyo balse nasiib xumo sidoo kale waxaa la maqlayaa dhawaaq muujinaya inuu miinadii ku istaagay wuxuuna halhaleel u fahmayaa inuu isaguna miinadii ku taagan yahay oo haddii uu dhaqaaqo uu naftiisa ku waayi karo Tommy ma uusan dhiman balse waxa uu waayay lugihiisii Tommy waxa uu bilaabay cabasho iyo gargaar dalab sidaa darteed Meg wuxuu isku dayayaa inuu dejiyo mana awoodo inuu dhaqaaqo Tommy marka uu arkay inuu labadiisii lugood qaraxa ku waayay waxa uu bilaabay jahwareer iyo qaylo aad u daran carigu waa saxaro qoraxdu waa ay
daran tahay signal lama haystaan. Meekna wuxuu isku dayayaa inuu saaxiibkii dejiyo isagoo xasuusinaya xaaskiisii iyo weliba wiilkiisii uu aadka u jeclaa. Waxa uuna u tilmaamayaa inuu cirbada daawada kalmaatiga ah qaato. Markaan Tommy ayaa harjadaya waxa uuna isku dayayaa inuu boorsada gaaro si uu u soo qabsado cirbadaha daawada ah. Sidoo kale wuxuu isku dayayaa inuu madaxda la xiriiro laakiin raadiyuhu ma shaqeynayo. Meek marka uu arkay inuu saaxiibkii quus yahay waxa uu isku dayayaa inuu saaxiibkii u dhaqaaqo oo waxa uu ku fakirayaa inay miinadani ay gabowday oo aanay shaqeynayn laakiin khatarta ayaa ka weyn. Tommy waxa uu doonayaa inuu Meek noolaado sidaa darteed wuxuu cabeysanayaa bistooladiisa waxa uuna Meek ka codsanayaa inuu jaceylkiisa ka gaarsiiyo hal fariin isagoo halkaas isku dilaya. Meek waxa uu qeylinayaa qeylo ay caro ku jirto waxa uuna u qeylinayaa si caro leh iyo murugo laakiin wuxuu dareemayaa inuu xanaaqu u keeni karo inuu dhulka ku dhaco uu miinada ka dhaqaaqo. Hadda waa keligii oo ma haysto wax wehel iyo saaxiibo ah. Intaa kadib wuxuu isku dayayaa inuu si tartiib ah u jilba dhigto waxa uuna isku dayayaa inuu si xeeladaysan uga badbaado miinada isagoo adeegsanaya mindidiisa. Meek oo aan dareemeyn ayaa wuxuu nin ka daawanayaa meel fog mana u soo gurmanayo oo waa uu la yaaban yahay. Meek oo isku dayayaa inuu gaaro boorsada waxa uu sameynayaa farsamo laakiin uma suurta gasho in badan oo uu tuurayay laakiin ugu dambeyn waxa uu ku guuleysanayaa inuu si dirqi ah ku gaaro weliba isagoo u dhawaaday inuu dhaco. Waxa uuna boorsada kala soo baxayaa raadiyaha laakiin raadiyuhu ma shaqeynayo oo waa dab la'aan maadaama uu baytarigu ku shaqeeyo tamarta qoraxda waxa uu dhigayaa qoraxda. Saacado kadib raadiyuhu waa uu shilmayaa waxa uuna la hadlayaa saraakiisha isagoo dalbanaya caawimaad iyo samato bixin. Si kastaba ha ahaatee saraakiishu kuma faraxsana guuldaradiisa maadaama uusan haysan Meek GPS waxa uu qarka u saaran yahay dhimasho. Saraakiishu ma siinayaan mudnaan sare maadaama uu ku guuldareystay howlgalkii. Helikabtaradana uma imaan karaan maadaama duufaantu ay aad u daran tahay sidaa darteed loo baahan yahay inuu 2 maalin halkaa ku sugnaado. Meek ma hubo inuu sii noolaan doono laakiin saacadiisu ku xiranayaa waqtiga loo imaan doono. Saraakiishu waxay u sheegayaan in bambooyinkani ay noqon karaan kuwa gaboobay oo aanay shaqeynayn. Si kastaba ha ahaatee wuxuu waayayaa signalkii oo waxa ka go'aya isgaarsiintii. Intaa kadib Meek ayaa bilaabaya inuu cuno qayb ka mid ah sahaydiisii isagoo dareemaya inay wax badani u harin. Mar kale waxaa soo dhawaanaya duufaanadii. Meekna wuxuu si degdeg u daboolaya wejigiisa isagoo u fariisanaya qaabka ugu wanaagsan ee aysan dabeeshu u dhaqaajin karin. Hadda Meek wuxuu maareeyay inay duufaantu ka dhaqaajinin booskiisii. Waxa ayna duufaantu u soo dhaweysay saaxiibkiis Tommy isagoo wejigiisa suraya. Waxa uuna jeebkiisa ka helayaa sawir u muuqda inuu Tommy xasuus ahaan u haystay. Meek waxa ka fogaaday batarigiisii oo ma haysto hadda wuxuu saraakiisha kula xiriiro. Qoraxdu aad bay u daran tahay. Meek wuxuu dugaal ka dhiganayaa maro yar waxa uuna cabayaa dhibicdii ugu dambeysay ee biyihiisa. Hadda waxa ka muuqata quus iyo niyad jab wuxuuna malaynayaa inay tani nolol ahayn oo wuxuu doorbidayaa inuu isdilo laakiin isla markiiba waxa soo muuqanaya nin aan isdhihi karno inuu noloshiisa badbaadiyay. Meek oo ay ka muuqato caro ayaa wuxuu isku dayayaa inuu ninkani si xooga ku caawiyo waxa uuna ku hadaaqayaa istaag oo caawi laakiin ninku ma istaagayo oo waa uu dhaafayaa. Meekna wuxuu malaynayaa in ninku uusan aqoonin Ingiriiska. Meek wuxuu isku dayayaa inuu ficil wax ku fahansiiyo isagoo afkiisa iyo gacmihiisa ku tusaaleynaya in dhulku wada milan yahay laakiin ninku waa uu ku maadsanayaa isagoo u soconaya qaab sagsaag ah. Waxa uu imaanayaa Meek waxa uuna weydiinayaa Meek sababta uu halkan u taagan yahay. Waxa uuna Meek dareemayaa inuu ninkani Ingiriiska garanayo. Meek ayaa ninka ka codsanaya inuu raadiyaha u soo dhaweeyo xoogaa biyahana u keeno. Si kastaba ha ahaatee ninku weelka biyaha waa uu ka qaadayaa laakiin raadiyaha uma keenayo waa uuna ka dhaqaaqayaa weliba Meek oo si daran u qeylinaya. Dhaqdhaqaaqiisa qalafsan iyo xanaaqiisa tirada badan Meek waxay ka dhigi kartaa inuu ka fogaado miinada oo halkaas uu ku qarxo. Heer wuxuu marayaa inuu kaadidiisa isku qasbo oo uu cabo. Xoogaa kadib waxaa soo muuqanaysa gabar yar oo u soo ordaysa dhankiisa qaab sagsaag ah. Dhulku waa wada miino oo si toos ah uma socon karto waxay u wadaa biyo. Meek wuxuu malaynayaa inuu dhalay ninkii ka tegay. Waxay soo bixinaysaa askari yar isaguna waxa uu soo saarayaa mid uu isagu bahayay. Gabadhu waxay askarta yaryar ku tilmaamaysaa Meek iyo saaxiibkii Tommy. Askariga yar ayaa waxay ku tusaaleynaysaa inuu Meek awoodo inuu miinada ka dhaqaaqo. Meek ayaa ku jawaabaya ma awoodo inaan ka dhaqaaqo waxa uuna ka codsanayaa inay raadiyaha u keento laakiin iyadu waa ay ka tegaysaa. Hadda qoraxdu waa ay sii dhacaysaa oo habeen baa la gelayaa. Meek waxa uu shidanayaa dab uu isku diiriyo ama sabahlada uu isaga waabiyo isagoo isku madadaalinaya sawiraanta saaxiibadiis Jenny. Wuxuu maqlayaa dhawaaqa xayawaano badan. Dabeesha saxaruhu aad bay u daran tahay dabkuna waa uu ka damayaa. Meek waa uu hurdooday laakiin waa uu qarwayaa oo si dhaqso ah ayuu ku soo booday.
waxauna iska waabinayaa ayda duurjoogta ah ee damacday inay halkaas ku cunto waxa ayna jiidanayaan meydka saaxiibkii Tommy waxa uu baqdin geliyay dhammaan aydii oo ay ka tageen hadda waxay noqotay maalin meyd waxa soo booqanaya ninkii badariga ahaa isagoo u sheegaya inuusan aqoonin meesha saxda ah ee miinadu ku aasan tahay oo uusan caawin karin Mike waxa tahay nin nasiib leh waxa uuna kula talinayaa inuu si tartiib ah uga dhaqaaqo miinada laakiin Mike waa cabsanaya oo wuxuu rabaa inuu noolaado badariga ayaa weydiiyay sababta uu Mike askariga u noqday Mike ayaa ku jawaabaya ma garanayo sababta aan halkan u sii joogi karo oo waxaan rabaa inaan baxo badariga ayaa u keenaya raadiyihii Mike isla markii waxa uu raadiyaha ka bedelayaa batariga isagoo sugaya wicitaan degdeg ah laakiin ilaa hadda ma shaqeynayo Mike waa uu niyad jabsan yahay ninkii badariga ahaana waa uu dhiirigelinayaa Mike waxay maskaxdiisu tusaysaa inuu yahay saaxiibkii Tommy oo dhiirigelinaya meeshu waa ay bahalo badan tahay oo Mike lugta ayaa laga qaninay laakiin wuxuu u muuqdaa inuu adkeysanayo Mike waa uu daciifay oo indhihiisu waa ay daciifeen Mike waa uu xanaaqayaa maskaxdiisuna waxay tusaysaa wax mala awaal ah maadaama uu xanuunkii ka tambadiyay xitaa wuxuu arkayaa Tommy oo ku leh soo baxa guriga tagne tani waa mala awaal oo Tommy waa hore ayuu dhintay waa habeen kale oo cabsi leh Mike weli wuxuu isku dayayaa inuu la xiriiro saraakiisha halka Tommy oo mala awaal ah uu sheegayo inuu raadiyigu shaqeynayn isla markiiba waxa soo muuqanaya wacitaan ka yimid aabihii Mike waa uu xanaaqayaa oo wuxuu kala tuurayaa Tommy si uu uga baraarugo mala awaalkan intaa kadib Mike wuxuu xasuus ku gelayaa isagoo saaxiibadii Jenny ka codsanaya guur balse iyadu waa ay ka diidaysaa mar kale waxa soo weeraraya aydii duurjoogta ahayd Mike waxa uu bilaabayaa inuu iska caabiyo waxay ku istaagayaan miino ka mid ah miinooyinkii oo uu la dagaalayaa inkastoo ay gaarsiiyeen dhaawacyo yaryar oo qaniyo ah dagaal dheer kadib waagu waa uu baryayaa waa maalinkii saddexaad aydu waa ay dhinteen laakiin Mike waa uu badbaaday intaa kadib waxaa soo dhacaya wicitaan uu sugayay in badan waxaana loo sheegayaa in kolayadii samata bixin lahayd ay dib u dhaceen dagaalo awgeed waa inuu sugaa 17 saacadood kadib wuxuu ogaaday in fursadaha badbaadadu ay yar yihiin Mike oo niyad jabsan waxaa hortiisa ka soo muuqanaya Jenny Mike waa uu daciifay waxaana u dhawaaday inuu dhulka ku dhaco laakiin badarigii ayaa qabanaya weliba xilli loo baahnaa waxaana ka dhayayaa dhaawacyadii ay aydu gaarsiiyeen waxaana u sheegayaa inay miino saameysay lugihiisa hadda ka hor waxaana siinayaa xoogaa daawooyin ah intaa kadib badarigu waa uu ka tagayaa Mike waxa uu maleynayaa inay gabadhii yareed la socoto Mike ma joojinayo inuu ka fikiro xasuusihii hore oo hadda waxa uu dhex galay gurigii caruurnimadiisa waxaana soo muuqanaya Mike oo meesha taagan aabihiina uu hooyadii garaacayo ilaa uu isaga feer ku dhuftay feerkii waa biyihii ku dhuftay ayaa waxay u soo celisay xaqiiqda uu haatan ku sugan yahay isla markiiba wuxuu bilaabay inuu ka fikiro nolol kale oo hore uu soo qaatay iyo dhimashadii hooyadiis mar kale waxaa soo muuqanaya Tommy waxaana u sheegayaa inuu dib ugu soo noqdo xaqiiqda uu haatan ku sugan yahay waxaana u sheegayaa inuu mar dhow dhibkani ka bixi doono oo la samata bixin doono Mike waxa uu maqlayaa in raadiyigu dhawaaqayo laakiin uma jawaabi karo afkiisa iyo cunihiisa oo qalalay awgood Mike waxa uu taagayaa gacantiisa isagoo muujinaya tilmaam inuu halkani joogo laakiin isagu ma muuqanayo Tommy oo dhalanteeda ayaa xasuusinaya inuu bamka qiiqa isticmaalo si kolonyadu si fudud ugu arkaan Mike waxa uu la harjadayaa oo uu dadaalayaa sidii uu gaari lahaa bamka qiiqa Mike oo u dhawaanaya quus waxa uu xasuusanayaa dhiirigelinadii saaxiibadiis Jenny waa uuna gaarayaa weliba isagoo dhiig baxaya hadda Mike waxa uu qaatay go'aan waxa uuna ka dhaqaaqay miinadii weliba isagoo ay ka muuqato argagax waxa uuna xaqiijinayaa inay tani miino ahayn kadib markii ay qarxi weyday Mike waxa uu marna la yaabay marna ku farxay inay tani ahayd koombo meesha lagu duugay hadda waa uu badbaaday laakiin waxaa dilowday gaajo iyo haraad kolonyadiina waa ay soo gaareen filimkuna wuxuu ku dhammaanayaa Mike oo ka soo degaya garoonkii Jennyna ay soo dhaweynayso